kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay waa barnaamijkeennii habeennimo waana barnaamijkii saddexaad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 6 bisha 6 2026 waa habeennimo sabdiya oo axadi soo galayso haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa qodob aad muhiim u ah oo saacada ka hor warbaahintu ay ka hadlayaan haddaba waxaa la sheegayaa jasiirad la yiraahdo kharaj oo ku taala Iiraan oo jasiiradaha Iiraan ka mid ah ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn qaraxyo dhulka gariiriyay qaraxyo ciidamada Mareykanka ee badda ku sugan ay dareemeen qaraxyo Cumaan iyo meelahaas laga soo sheegayo in dhulku ruxmay war Iiraan baxay sameeyeen caaw walla yaabay Iiraaniyiinti maxay sameeyeen alle laakiin war rasmiya weli lama hayo ilaa laakiin war hordhaca oo soo baxay waxay leeyihiin niman saraakiil waxay yiraahdeen waxyaabaan qarxinayna rasaas iyo waxyaabo meelaha qashida war qashid dhul baruxee war maxaa la sameeyay maxay noqon kartaa liir dadka qaar marka shaki weyn ay qabaan waxay leeyihiin waxaan hadda ka horna mar ayay sidan oo kale Iiraan wax u gariiris waxaana loo maleynaa gariirka awoodan wax weyn oo bam ah inay tijaabiyeen bamka nuclearka inta badan iyo bambooyinka khatarta dhulka hoostiisa lagu tijaabiyaa dhulka hoostiisa lagu qarxiyaa si awoodiisu loo ogaado marka caawa arikaasha dhacaale haddaba markaan tuso telefishinka la yiraahdo Sky News wuxuu leeyahay qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay meel ku dhow jasiirada la yiraahdo Kharaj oo ah jasiirad Iiraan ay leedahay haddaba warbixino hordhaca oo laga helay wakaalada wararka Tasniim la yiraahdo Iiraan ayaa waxay sheegeen caawa in qaraxyo waaweyn laga maqlay halkaas waliba meel ku dhow jasiirada ayaa qaraxyada laga maqlay waxayna ku taalaa jasiiradaas la yiraahdo Kharaj koonfurta Iiraan haddaba mas'uuliyiin waxay sheegeen in ay sameynayeen qarxinta hub inay halka ku qarxinayeen Iiraaniyiinta laakiin warar kale oo goordhow soo baxay wakaalada wararka ee Faris waxay sheegayaan in qaraxyo waaweyn iyana halka laga maqlay oo markaa meelo badan gariirka uu gaaray haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in qaraxyada xoogooda la dareemay meelo ka baxsan jasiiradda in laga dareemay marka kullay shaki badana jira la leeyahay wuxuu noqdaba waa arkeena laakiin Iiraan si official wali uga ma hadlin marka laga rabo saraakiil yaryar oo tiri waxaan sameynaynay rasaas iyo alaabaan qarxinayn marka culayska iyo waxa ay leedahay iyo sida ay akhbaar u tahay oo nin rasaas meel ku qarxiyay akhbaar maaha laakiin in warbaahintu qaadato sheekada Mareykanku ay indhagaara ku hayaan maraakiibteena waa laga dareemay yiraahdaan wax la yaab la meesha ka dhaca leeyahay marka sheekadaas kullay wixii ka soo kordha waanu arki doonaa dhanka kale ninkii Trump ahaa iyo kooxdiisu waxay ku dhagan yihiin Israa'iil waxay leeyihiin waana basaasaysaa basaas hadduu jiro Israa'iil ayaa xafiisyadeena basaasaysay way marka dadku is weydiinayaan Mareykan iyo Israa'iil saaxiibo waaye maxay isku basaasayaan hal arina la isku basaasaa haye Trump iyo kooxdiisu wada hadallada ay kula jiraan Iiraan xog badan oo kamida way qarsadeen Israa'iil way ka qarsadeen Israa'iil ma ogolaba wada hadalla moogtay Israa'iil marka waxay wax kasta ku bixinaysaa waxan uu qarinayo Trump oo ku saabsan heshiiskan hoose ee ayaga iyo Iiraan ay galaan ay rabaan inay ogaato marka basaasidu waa beeshaas haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee arinta laga qoray wargeyska Mareykanka ka soo baxay ee la yiraahdo New York Times wuxuu leeyahay basaasnimada Israa'iil
ee wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeya ayaa xad ka dhaafta la leeyahay. wargeyska New York Times wuxuu soo xiganayaa saraakiil Mareykana waxay sheegeen in dadaalada basaasnimada Israa'iil ee lagu xaqiijinayo ogaanshiyaha mowqifka saxda ah ee Washington ee wadahadallada Iiraan inuu hadda ka gudbay xadkii caadiga ahaa, taasoo sharaxaysa in Israa'iil ay raadinayso helidda macluumaad ku saabsan istaraatiijiyadda Trump ee ku wajahan wadahadallada uu kula jiro Iiraan. wargeyska wuxuu leeyahay waxaanu intaasu wargeysku ku daray in dhaqdhaqaaqa sirdoon ee Israa'iil uu noqday mid ka xoog badan xataa dawladihii cadawga ku ahaa Mareykanka. say xoogga u gelinayso inay ogaato waxaan laga qariyay. waxaa lagu leeyahay dhaqdhaqaaqa basaasnimada Israa'iil ee Trump iyo kooxdiisa wuxuu noqday mid ka awood badan xataa kuwii dawladihii cadawga ku ahaa Mareykanka oo isbasaasay. marka sheekadaas iyaduna waa cusub tahay, wararka cusub ay ka mid tahay. dhanka kale waxaa cusub Hezbollah iyo Israa'iil dhagaha la iska garaacay. waxay ka dhintaba 16 hadda maray. Israa'iil waxay leedahay 16 isugu jirta saraakiil iyo askar nooga dhimatay dagaaladii ugu dambeeyay Hezbollah aan la galnay. hadda caawa warkii ugu dambeeyay nin sarkaal sare ah ayaa naga dhintay dheen oo waliba wuxuu u dhintay dhaawac markii hore soo gaaray. marka meesha waxa ka caday leeyihiin dadka khubarada ah Hezbollah nimanka kanu inay nagta ka saartay si fiican ay u edbis. haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay arrimaha laga qoray, Al-Jazeera waxay leedahay waxay yiraahdeen Israa'iiliyiintu waxaa dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka guutada la yiraahdo Golani wuxuuna ku dhintay koonfurta Lebanon. warbaahinta Israa'iil ayaa caawa tabinaya in sargaalkaasi uu ka tirsanaa guutadaasi taageersan qaybta commandoska Golani la yiraahdo, waxaana uu u dhintaa la leeyahay sargaalka dhaawac soo gaaray. kanaalka 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa isaguna xaqiijiyay in ciidanka iyo saraakiisha Israa'iil kaga dhimatay dagaalkii ugu dambeeyay ee Lebanon tan iyo markii xabad joojintii ay burburtay inay hadda gaarayaan ilaa 16. war muhiim ah oo hadda soo dhacay waxaa leeyahay gaashaanbuurta NATO waxa ay xoojisay ciidamadeedii ka joogay Finland iyo Sweden iyadoo markaa laga hortagayo nashaadka iyo isballaarinta Ruushka uu samaynayo. meesha la yiraahdo qudba shimaaliya la yiraahdaa waa maartay dhanka waqooyiga cirifka la yiraahdaa cirifka waqooyiga la yiraahdaa qudba shimaaligu marka meeshaas Ruushka isku soo ballaarinaya. nimanka kanuna uu u dhow yahay darisoo leeyahay Finland iyo Sweden 2003 iyo 2004 NATO soo kala galeen askar badana marka meesha la geeyay. marka waxa leeyahay taliyaha ciidamada hadda NATO waa nin Mareykana wuxuu amar ku bixiyay in dhaqdhaqaaqa Ruushka lala socdo mar walba wuu gaadi karaa NATO leeyahay. marka hadda Finland iyo Sweden way baqeen ciidamo iyo waxyaabo dheeraada oo maartay NATO ka socda ayaa halka lagu xoojinayaa ayaa la leeyahay. warkaas ayaa caawa soo kordhay. haddaba wixii kale oo akhbaarada ee soo dhaca wararkeena dambe iyo barnaamijyada dambe ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii alla idmo. like gareeya oo share gareeya barnaamijkayga caawa oo ahaa kii saddexaadna waa naga inta aan mar kale kulmayno.